mudane yuusuf xasan umal waxaa taagan sidaad la socotid golaha wakiilada doorashooyinkoodii oo muddo dib u dhacay iminka asxaabtii siyaasaddu way ka heshiiyeen laakiin arrintan soo baxday waxa weeye dee muddooyinka ma taagneed arrinta saami qaybsiga maxaa sabab u ah waqtigan aloosay bay kula tahay arrintaas saami qaybsiga aniga waxay ila tahay runtii in ay arrintaasi way ku salaysan tahay arrin dee yacnaa sidii reernimo oo kale dadka ay doonayaan ay wax ku doonayaan oo aanay aanay meesha oolin caddaymo kale oo runtii muujinaya in dee wax la kordhiyo ama wax la dhimo waayo waxa weeyaan laba qodob oo runtii muhiima ayaa meesha ka maqan kow dadka maanta doonaya ama gobollada doonaya in wax loo kordhiyo may soo dhigin dood ah in 1960 markii la qaybinayay kuraastii baarlamaanka bacdimo maanta 1960 lagu fadhiyo in halkaa wax laga tegey oo ay halkaa dulmi ka taagnaan may caddaynin oo ma soo dhigaan oo doodooda kuma jirto qodobka kale aan doodooda ku jirin waxa weeyaan dee registration ama diiwaangelin dambe oo tiradii 60kii dadka la hayay ka dambeysay oo la sameeyey oo laleeyahay intaasaa nagu yacni annaga noo dheeraada maanta qodobkaasina meesha kuma jiro marka waxay unila tahay in inay ka dambeeyaan dad runtii doonaya sistamka dowladnimo ee somaliland in la biyadhiciyo oo dee dadka madax dhaqameedka iyo odayaashana soo dhex maraya oo sidaa dadka ku kicinaya ayay la tahay laakiinse wax kale oo dee caddaynaho meesha yaalla ma jiraan xildhibaano ka soo jeeda gobolladaas aan waraysanay waxay aaminsan yihiin in waktigaaba dee sidan un looga tiro badnaa oo sababtaasi ay keentay in ingiriiskii laftiisii oo 33 xildhibaan ee 60kii ee laga soo tixraacay xildhibaanadan iminka golaha fadhiya lagu doodsiiyey taas sidaad u aragtaa taasi runtii dee qodob saxa maaha waayo had iyo jeer xildhibaanada adduunka oo dhan meel kastaba ha laga soo doorto waxa laga soo doortaa ama lagu saleeyaa mar walba tirada halkaas joogta ee dadka ah noocay doonaanba ha noqdaan meeshay doonaan ha ka soo kala jeedaan taas ayuunbaa lagu saleeyaa taa lafteeda haddii aynu eegno dee waa saxo 60kii 33 xildhibaan bay ahaayeen 4 degmo oo 6 degmo ee dalka ka midi waxay heleen 5 degmada boorame degmada berbera laascaanood iyo ceerigaaba 5 bay lahaayeen degmada burco oo buuhoodla ku jirto 6 bay lahayd degmada hargeysa waxay lahayd 7 markaaba waxa lagu saleeyey waxay ahayd dee dadkii tiradoodu joogtay maantana waxay ila tahay waxa lagu kordhin karaa oo keliya waxa weeye in la isqanciyo isqanciskaas oo loo marayo tii berigaa loo maray oo kow laba qodob oo keliyana waxay ila tahay in lagu soo koobo kow waxa weeye horta waa in tiro sugan la helaa oo dib loo qiimeeyaa gobolladii degmooyinkii oo la yidhaahdaa maxaa degmo walba maxaa ku kordhay maxaase ka dhimay taasi waa qodob qodobka labaadna waxa weeye waa inay timaadaa dood laga doodayo oo la odhanayo horta ma u baahannahay inaynu kordhino oo aynu xildhibaano dheeraada waayo iminka markaad eegto 1960kii ilaa 2005 waxa weeye waa 45 sannadood 45kaa sannadood boqolkiiba boqol in ka badan ayaa la kordhiyey iminka gobolka awdal oo kale oo runtii aad u doonaya haddaan ka soo qaado 8 xildhibaan ayaa ilaa 60kii u kordhay haddii lagu socon lahaa 5 sannadoodba ilaa 60kii in la doorto mar baarlamaanka la doorto macnaheedu waxay noqonaysaa in wakti kasta oo doorasha dhacda hal kursi loo kordhin lahaa gobolka awdal maaha gobollada oo dhamina waa wada sidaa weyi waa tahay xitaa loo baahan in la isweydiiyo ma u baahannahay inaynu kordhino maxaa sababaya waxaasoo dhan in dib runtii loo qiimeeyo aqoon-yahan ka madax bannaan siyaasadda oo xusbi kursi doonaya ama xildhibaan doonaya inaanu kicinba aan loo diibin ee ay noqoto dood furan oo aqoon-yahanka somaliland galaan waa tahay laakiin dadka xildhibaanada u badan ee ama siyaasiyiinta ee gobollada ka soo jeeda waxay leeyihiin somaliland markii hore beelo isu tegay oo heshiiyey oo ku heshiiyey inay nidaam dhistaan bay ahayd 5 beelood oo waaweyn 5 beelood beesha dhexe ayaa dee aqlabiyadii xildhibaanada leh marka waxay leeyihiin dee saamigii ha laga dhigo 2 qaybood qaybna beesha dhexe ha yeelato qaybta tirada xildhibaanada inta kalena
ha qaataan beelaha kaloo isu tegay taa maxaa ku jaban taasi sax maaha waxa weeye dadka reer somaliland gobol kasta ha joogaan waxa weeye qof shiksi marka la hado waa isku xaquuq gobol marka la hado waa isku xaquuq mar waxana waxay ku salaysan tahay resourceska waa loo siman yahay waa in si siman loo qaataa waa in loo qaataa maxaa la yidhaahdaa waxbarashada si siman loo qaataa haddii iminka ay kala badan yihiin gobolladu masalan baa dadka degan lama odhan karo reer gobolkaa reer hebel degan yahayna 5 iskuul ha laga dhiso kaana 10 ha laga dhiso oo reebnaha lagu qaybsado wax waliba la socdaan waxa weeye waa tirada dadka tanna waxay la tahay waxay ku salaysan tahay uun tiradii dadka laakiin haddii caynkaa la yidhaahdo waxa inaga lumaya systemka iyo xigmadda dawladnimo ayaa runtii lumaysa waxa kale waxa weeye waxay ku salaysan tahay tiradaa uun baan adduunyaduna sidaas unbay ku socotaa runtii laakiin taasi maaha anigu ma arka doorasha runtii xalku muxuu noqonayaa si doorashadii wakiilada iyo deegaanka oo isi saaran oo muddo dib u dhacayay arrimo taasi ay ka mid tahay awgeed maxaa xalku noqonayaa si doorashadii oo qabsoonto xalku wuxuu noqonayaa tan iminka madaxweynaha la leeyahay yacni samee xal oo keliya inaanay noqon kani xal maahe waa xujo waxa weeye waa madaxweynaha lagu xujeeyo isagu ha sameeyo oo taasna runtii anigu ma taageersani ko xalku wuxuu noqonayaa saxda ahi in sidaa aan hore u sheegay la helo tira koob saxa oo 1960 tiradeedii waynu haynaa London bay taallaa Hargeysay taallaa lasoo qaado oo miiska lasoo dhigo tamaantana lasoo qaado oo miiska lasoo dhigo oo labadaa la isu eego oo la yidhaahdo okay maxaynu markaa kordhinaa halkee percentage cid walba wixii u kordhay haddii wax la kordhinayo percentage ahaan loogu kordhiyo oo ay Somaliland qanciso oo ay kulligeed sidaa ku wada qanacdo oo la ogaado gobol walba inta u kordhay iyo inta ka dhimantay ayuunbay aniga ila tahay xalku inuu noqonayo laakiin aanay noqon doonitaan in marba intay yacni gobol meelka soo taagay yidhaahdo waxa ayaan doonayaa ee ha la ii kordhiyo taas oo weliba dooda adag laga yeesho oo la eego oo si madax bannaan loo eego oo waxaynu qaadi karno iyo gobol waliba inta xildhibaane uu qaadi karo iyo intuu u baahan yahay iyo already inta la kordhiyey iyo waktiga la joojinayo watay inta la joojiyo ayaa u baahan laakiin arrimahaas oo dhani waa arrimo wakti u baahan marka waxaa muuqata in doorashadii waktigeedii dib uga dhacayso haddii la doonayo in hawlaha loo babac dhigo soo maaha taasi runtii ma aha dood odhanaysa arrintaa awgeed doorashada ha ugu dhacdo waxa weeye waddanka waxba la kala boobi maayo gobollada qaar baan hadday tirsan yihiin oo inkastoo aaminsanaynaan 100% gobollo maanta register garaysnayn qaar baa 80% register garaysan yihiin qaar baan 10% ama 20 register garaysnayn markaa in wax la kala boobo maaha waxa weeye waa in dee qaran baynu nahay la tixgeliyaa oo duruufaha inu hor yaalla la tixgeliyaa way xildhibaanada iyo dadka waxaan doonaya ama u ololeynayo taan qaybsiga waa inay gobol eegaan oo xaaladda dalka eegaan oo la qiimeeyaa oo yacni loo sabraa in maalinteeda ay timaadeen deen dheriga intaanu islaan xadka lagala bixin waxa weeye gobollada qaar baan dee aad u dambeeya oo la og yahay oo xaqiiq ah marka waa in wakti la siiyaa doorashadana sidaa lagu galaa baad ujeedaa caynkaa weeye macnaheedu waa intana sidaa lagu galaa waktigeedana la siiyaa lagana soo shaqeeyaa in degenaansho iyo tirakoob saxa oo kii 60kii oo kala la helaa laakiin aan maanta dee waxba la kala hororsano waxba la kala boobin